waxaan leeyahay irmadana ra'iisul wasaare kol haddaadan cadaalad darradii gobollada ka dhacday maamul goboleedada aadan misaynin oo aadan mid walba waxaad rabta ka qabsanin kuraastan aad haysataa waa kugu qalada iska sidaa sumcadaaday wax u dhimaysaa ceebtaaday walaagaagii wax u dhimaysaa dalkana mustaqbal baad ka rabtaa inaad madax ka noqotaad rabtaa inaad berri ka maalin cod iyo doorasho ka heshaad rabtaa dadkuna siduu kuu yaqaan weeye sidaa adigu isu taqaan maaha qof kastoo ood wax u qabtayna cafi aan iswada cafino anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kastoo dembigii galay waa cafiyey waxaan rajaynaa sidoo kale anigana in la wada cafin doono haddaanan iswada cafinin cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenayso ka hor waxaa wadaanti ah wasiir aniga adiga waxaan joognay jimcihii maaratoonka oon ka qayb qaadanay haddii siyaasiyiinta ay maalintaas orod ka qayb qaadan lahaayeen stresskana waa ka degi lahaa sabtigii wixii baarlamaanka ka dhacayna kama dhaceen marka ugu horraysa horta annagu waxaanu nahay dadka ummadda hoga tusaaleeya dadka haga ayaanu nahay dadka wax u sheega ayaanu nahay dadka uga diga xumaha ayaanu nahay wanaaggana ku hanuuniyaanu nahay waanu hanuuninaa waanu hagaajinaa hawshaa kolkii horaan ku jiray oo aan ahaa malaa garan maysaan baan u malayna qofku marka la yidhaahdo waa murtiyahan ama waa fanaan la yidhaahdo booskan isagaa iskale waa indhihii shacbiga waa muraayadii laga dhexartaayey annaguna taasaanu ahayn marka kii un baan sii kordhiyey waxa ii geeyey oo aan maanta baarlamaanka si toosa uga mid noqday dalkayga Soomaaliyeed iyo dadkay wixii aan u qaban karo inaan u qabto inaan maxay aan dadaalo inaan ummadayda qof wadaniyadaan ahay qof u taagan baan hay samaha marka wixii aan samayn karo inaan sameeyo ayaa ii geeyay waana u taagnaan doonaa inta aan noolahay kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada inaga dhageysanaysa ku soo dhawaada codka Muqdisho tan iyo sanadkii 2011 bishii August oo ku beegan markii al-shabaab laga sifeeyay fariimihii ay ku lahaayeen Muqdisho waxa aad u yaqmaayay awoodahoodii ay dilalka iyo qaraxyada kaga geysan jireen magaalada intuu la wareegay xukunka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shaqaalaha xukuumadda ayaa ka nabad galay ugaarsi ay kala kulmi jireen shabaabkii jiray dhawaan waxaa lagu laayay magaalada Muqdisho dhaqaatiir Suuriyaan ah oo ka howlgeli jiray mid ka mid ah isbitaalada magaalada ilaa iyo haatan cidna looma qaban dilkaas foosho xun ee dhacay waxaa ka sii horeeyay dil loo geystay gabar macallimad ka ahayd jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo aan ilaa haatan cidna loo soo qaban dilkeeda adalxeynta ugu badan magaalada Muqdisho ayaa noqotay waayadan dambe dilalka qaraxyada ay u dhaxeeyaan hadba kooxo isku shaqo ama xirfad ah ganacsatada waxaa ku maqan ganacsade kale dhakhtarka waxaa ku maqan dhakhtar kale macalinka waxaa ku maqan macalin kale wariyahana sidoo kale waxaa ku maqan wariye kale taa oo ah mid nasiib darro ah dawladda dagaalkii ay kula jirtay shabaab waxaa uga sii daray howlo kale oo culeyskeeda leh taas oo ah kala ilaalinta hadba qolyahan isku xirfadda ah dil walbo ama qarax walbo oo dhaco cidda fulisay ma ahan shabaab waxaa jira intaas oo kooxo ah oo isku ugaarsada hadba tani waa su'aal ay isweydiinayaan guud ahaan dadka ku hadla afka Soomaaliga meel kasta oo ay caalamka ka joogaan gudaha jamhuuriyadda iyo dibadda in loo helo jawaab waafi ah waxay u baahan tahay ogaal badan iyo in lagu muujiyo taxaddar dheeraad ah si loo ogaado dulmi farayaasha misna aan loogu xadgudbin xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed dilka Allah u naxariistay abwaanka ma ahan dilkii ugu horeeyay ee lagu kaco ruux qalbiga ummadda ku weyn mana noqon doono kii ugu dambeeyay ee lagu beegsado dadka waxgalka ah ee bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxa aad u sahlan in la yiraahdo abwaanka waxa dilay xaragada shabaab iyagoo waliba aan wali sheeganin dilka abwaanka sida aan ka wada daragsanahay shabaab oo kaliya ma aha kuwa geysta dilalka ka dhaca Muqdisho hase yeeshee waxaa kaloo jiro kooxo u abaabulan qaabeleed oo iyaguna qayb ka ah dilalka naxariis darrada ee ka dhaca gudaha caasimadda dalka ee Muqdisho sida ay ka dhawaajiyeen shacabka ku dhaqan caasimadda tuhunka dilalka ka dhacaya Muqdisho kuma goobno
shabaab oo keliya magac kasta iyo muuq walboo laha loo yeelee balse waxaa jira dilal raadkoodu ku soo dhammaado xarunta madaxtooyada. haddaba kolka la isku soo horiyo xaqiiqooyinka ka jira muqdisho ayaa waxaa ku soo baxayo dilka abwaanka iyo kuwo kaloo dhici doono mustaqbalka dhow sidan oo kale ay u raxman doonto jawaabta su-aasha ee ah yaa dilay abwaanka. daawadayaal tani iyo 2010 ayaa waxaan mid u dul istaagi doonaa culummada awqaasha waxgaradka iyo weliba abwaaniinta ka baxay dowladdeena iyo weliba shacabka. aad baa u mahadsantihiin haddii uu idin soo gaara muuqaalkana sii sheer gareeya.